بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا ندا قيمها iyo qadarinta naga mudan oo meel kasto caalamka ka joogtaan iyo si kasto oo noo daawanaysan ba ku soo dhawaada barnaamijkii kormeerka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah 35 qof oo ku geeriyooday wadanka Sacuudiga iyo sababta ay ugu geeriyoodeen Shariif Sheekh Ahmed oo dalab cusub ka dalbaday oo dalab cusub hordhigay dowladda federaalka kuna saabsan doorashooyinka sababta uu ra'iisul wasaare Khayre xalay ugu dhoofay dalka Mareykanka xilli saqbada waliba iyo al-shabaab oo cunaqabatay nakab ku siiyay qudaartii imaan jirtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho aan ku bilaabo qodobka ugu horeeyo محمد ترتيب دي aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee dalka Sacuudi dalka boqortooyada Sacuudi Carabi ayaa waxa ku geeriyooday 35 qof 35taas qof sababta ay u geeriyoodeen iyo sida ay u geeriyoodeen ba waxa inooga fadhinaa wariye Barraayil Xasan aad ma santahay Cabdiraxmaan Afakaado adiga mudan waa mar kale iyo barnaamijkeena kormeerka wararka daawadaasha waxay kala socdaan channelada kala ah Kismaayo Cable iyo Qarri Juqod barnaamijka hadii aan ku bilowno qodobka ugu horeeya dalka Sacuudiga dad ku geeriyooday dadkani dad waxay ahaan cumreysanayay waan gartay waxay inta badan ka soo jeedaan qaaradda Aasiya iyagoo oo gaari bas hala socday inta u dhaxaysa magaalooyinka barakaysan ee Madiina iyo Makka iyo gaari kala ku dhacay sida ay xaqiijiyeen saraakiil u hadashay dalka Sacuudiga ilaa iyo 35 qof ayaa shilkaas ku geeriyooday halka afar kalena ay ku dhaawacmeen banaxariis jannaha ka waraabiyo dabcan dadkaas dad wanaag iyo khayr doon ay ahaayeen nasiib badan bay ahaayeen nasiib badan haadiya kulli wala geeriyoono naftu lagu waari maayo laakiin meel wanaagsan bay meel wanaagsan wuxuu yiri ninba sheekeeyo waxa la yiri maalin jimco dhintay galab khamiis oo jimco soo galayo ramadaan ah habeenkii leelatul qadri ku beegneed ah isoo xajka joogo dhintay wasaan leeyahay wadaadu dhimatay wasaan ma gana marka si fiican bay u geeriyoodeen waqti fiican bay geeriyoodeen meel barakaysan bay ku geeriyoodeen Allah u naxariisto intii ay geeri kulliba farxad ma lahan dad buu ka baxaya qof ka baxaya ma dhimanaya qofna de waa qof xanuunsanaa oo aad muddo soo roonayso ha geeriyooda qofkaas waa ka samri kartaa laakiin qof safarka aad oo kale waa mudul qafla waxa weeye oo si safar u jiray u sugaysay lagu yiri qofkii waa geeriyooday waa xanuun badan tahay si kastaba haatay xitaa macnaha xajka gudihiisa qof ku geeriyooday kulliba geeri ma lahan farxad dadkaasi ku geeriyooday dalka Sacuudiga waxaan leenahay ibn xariis jannaha ka waraabiya 35 qof oo cumreysanayay ayaa bas gaari kale oo ay saraayeen iyo baskii ay saraayeen ay isku dhaceen inta u dhaxaysa magaalooyinka barakaysan ee Madiina al-Munawwara iyo Makka al-Mukarrama halkaasna 35 qof oo geeriyooday afar kalena way ku dhaawacmeen dadkan dhamaantood waxay ka soo jeedaan qaaradda Aasiya waxayna dalka Sacuudiga ama magaalada Makka ay u tageen in ay soo cumreystaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay Barro hadii aan uga sii gudubno qofka labaad ama qodobka labaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay waqti habeen kala badh ka dhoofay magaalada Muqdisho wuxuuna u dhoofay dalka Mareykanka sababtu maxay tahay aad baa la soo weydiinayaa weli lama baranin madaxda dalka oo xilli habeenimo guura dalka ka baxa waa guure iyadoo la baqanayo marka dad badan baa is weydiinaya sababta ra'iisul wasaaraha isagoo guuraya oo xalay xilli habeenimo oo guday oo ga dhoofay Muqdisho waxa kaga sii daran wuxuu transit ku ahaa Addis Ababa dalka Ethiopia wuxuuna ku socday Washington DC caasimada dalka Mareykanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay xilli habeenimo waxa uu ka dhoofay garoonka Muqdisho garoonkeeda aadan cadad dabcan leyd buleho waa garoon habeenkii diyaaradaha ay ku soo deegi karaan marka transit buu ka Addis Ababa wuxuu u doolay ama u socday dalka Mareykanka gaar ahaan caasimada Washington DC halkaas wuxuu uga qayb galayaa waa sababtan hadda imaanna daawadayaasha la wadaagan xogta wuxuu uga qayb galayaa shir sanadlaha oo ka dhacaya Washington oo ay yeelanayaan bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF la dhaho shirkan dabcan Soomaaliya muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay deyn cafinti waayadan aad loo hadalay ba halkaasi looga hadlaya lacag sameynteeda waxa ku dambeysay
barnaamijkaas nin waa dhaweyd waa la sheegayay armu laablakac iska aha inuu sayid maxamed cabdilla xasan ku sawiraan bay ugu dambeysay laablakac baaban malayn waa dhaxaas aad loo sheegay kadibna wax sheegiba lama arag wala isku fahmi waayaan wasiirka maaliyadda la weydiin doonaa Bayle oo arrintaas aad uga hadlayo lacag baan sameysanaynaa inkastoo Soomaaliya oo burbur muddo ku jirtay hadda aysan fududayn in lacag samaysto Suudaan baan maqlaynay ya xagga lagu sameeyaa laakiin Suudaan lafteeda ayaa xaalad adag iskaga jirta way naga xadis Suudaan madaxweynihi baa xabsi la geliyay dib lagu sameeyaa meelaha lacag ku buuxaan ma lagu sameeyo nooha meelaha wadamada degan Kenya kale ma yimaado lagu sameeyo Kenya ma war meesha lacag lagu sameeyo xagee way Carabaha iyo meelahaas Carabada naf laga sugi maayo Dubai warshadaalo ma malay okay shirkaas marka qayb galay shirkaas uu qayb galaya shirkaas marka waa bangiga adduunka IMF Soomaaliya marka waxa looga hadlayaa dawladda Soomaaliya iyo xukuumadda Ra'iisul Khayre horumarka ka sameysay dhanka waxa weeye deyn cafinta ee Soomaaliya deyn cafinta iyo horumarka ka sameysay hadana musuqmaasuqa meeshii uu hooseeyay iyo aad baa loo yaaban yahay dawladda hadda jirta musuqmaasuqa waxa weeye lacag badan bay waxa weeye maamuladii u adeegsatay inay ku burburiso oo ay ku yarabto ku dhisto ku aysan rabin ay daaqada uga saarto aadiyad haddana waxa weeye waxa la leeyahay musuqmaasuq waa la dagaalamaya marka waxaan filayaa dawladda jirta musuqmaasuq fara badan in ay ku lug leedahay madaxweynihii hore waan u laaban doonaa madaxweynaha waa Khayre marka waxa lagu wadaa in uu shirka ka jeediyo khudbad uga hadlayo deyn cafinta iyo halka ay marayso horumarada ay deyn cafinta ka sameeyeen dalka Soomaaliya sidoo kale wuxuu la kulmi doonaa madaxda bangiga adduunka World Bank iyo madaxda IMF ama hay'adda lacagta adduunka si uu u gudbiyo Soomaaliya halka ay marayso in deymaha laga cafiyo iyo barnaamijkaasi hore loogu soo gudbiyay halka ay marin hayaan deyn cafinta iyo qaabka looga cafin doono khudbad ama madaxdaasi kala kulmi doona u gudbin doona waxaan filayaa inuu ku guuleysan doono mar horena ay ku guuleysteen in qayb yani process weeyaan deyn cafinta baa la yidhi yani step 1 step 2 step 3 saasay leedahay marka ilaa oo meesha u dambaysta laga gaadho marka inuu processkii guul fiican ka gaadho iyo nidaamyadii loo soo gudbiyay ee qaabka deyn looga cafinayo oo iyaga waxa weeye lagu fiirinayo dawladda iyo habka ay uga soo baxdo iyo hadda u gudbinayaa iyaga natiijadii iyaguna markaas isla rogayaan oo eegayaan qaabka wixii ay u direen dalka homework baa la siiyay dawladda cashir baa la siiyay qaabka ay uga soo baxdaa la fiirinayaa marka kolba qaabka ay uga soo baxay dawladda World Bank ama bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF ay uga jawaabi doonaan oo ay falcelin uga sameyn doonaan okay madaxweynihii hore xukuumadda federaalka Soomaaliya xukuumadda ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Ahmed sheekh waa loogu daray waa Shariif Sheekh Ahmed والله حتى لكن باسبور كيسه لكن مركي ورث شيخ واجد مركي مدحوين نقضي شريف مي معلم بابا غير marka sidaan jawaab saafar sharcigiisa waxa ku qoran Shariif Sheekh Ahmed Shariif Sheekh Ahmed dalab cusub buu dawladda hor dhigay kuna saabsan nidaamka iyo habraaca doorashooyinka muxuu leo Cabdiraxmaan Fakado mudooyinka waxaan ogeyn in xisbiyada mucaaradka ay walaac ka muujinayeen in xukuumadda ama dawladda hadda jirta ay rabto in waqti kororsi ay samaysto kadib markii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya uu arrintaasi fashiliyay oo uu sheegay xitaa in dawladdu aysan rabin inay baarlamaanka u marto in waqti ay kordhisato laakiin ay rabto hoosta ka waxaysato mudooyinka marka waxaa jirtay walaac arrintaas ku aadan Xasan Sheekh Maxamuud waan ogeyn maandhaweyto Kismaayo wuxuu yiri waxyaabo muxaramaad ah jira oo aan la gali karin oo ah haddii mandateska iyo waqtiga ka dhamaado meelahan luqluqyadan gelin aysan jirin waqtiga haduu dhamaado doorashada xilligeedii lagu qabto marka Sheekh Shariif oo arrintaas ka duulaya iyo walaac ay xisbiyada qabaan yaa wuxuu ku baaqay in la sameeyo kulan saddex geesood ah oo u dhaxeeya dawladda maamul goboleedyada iyo xisbiyada ama axsaabta siyaasadda dalka waan gartay markaasina kulankaasi looga hadlo doorashada soo socota iyo qaabkii ay waqtigeedii u dhici lahayd wuxuu aad ugu dheeraaday in Soomaaliya iyadoo xilliga hadda ay jirto ka xun doorasho la qabtay soo ahaan xilligiisa ku meel gaar baahay doorasho la qabtay
xasan sheekh maxamed xilligiisii in kasoo kumeelgaarka laga soo baxay oo federaalka ahayd doorashaa la qabtay marka wuxuu yihi maadaama dalka iyadoo xilli ka xun uu ku jira doorasho lasoo qabtay macquul maahan hadda in wuxuun meelaha faraha la geliyo oo waqti koros iyo wax dowladda hadda jirta ay isku daydo marka wuxuu soo jeediyey in maamul goboleedyada dowladda iyo axsaabta siyaasadda dalka ay kulmaan kadibna laga wada hadlo qaabkii doorashada xilligeeda ay uga dhici lahayd iyadoo meesha laga saarayo inaba yaraatee wax waqti kororsi ah oo dowladda hadda jirta ay samaysto dabcan saan ognahay dowladda markii la doorto Soomaaliya sida Kenya oo kale maahan Kenya waa 5 sano iyo madaxweynuhu xilka haynaya Soomaaliya laakiin waa 4 sano dowladda hadda jirta marka waxay waqtigu ugu eg yahay 7 bisha Febraayo ee sanadka 2020 ay u eg tahay maadaama madaxweyne Farmaajo la doortay 7 Febraayo sanadkii 2017 marka xilligaasi wixii ka dambeeyay mucaaradka ama axsaab siyaasadda dalka waxay doonayaan in doorasho loo dareero iyo maamul goboleedyada ama maamul goboleedyada qaarkood inkastoo kuwa ay qaarkood ay dowladda gacanta ku hayso iyaga sidii dowladda ay u go'aamiso ama u hogaamiso ay u hogaamisamayaan marka Sheekh Shariif dalabkaasi uu soo jeediyay laakiin dowladda inay aqbali doonto in kale war looma hayo in ay waqti kororsigaasi dowladda ay dhab ka tahay in ay tahay iska ciyaar si jirta iyo walaac ay tahay war looma hayo laakiin wax walba wacda ka laabane wuu soo bixi doonaa mudooyinka ama bilooyinka soo socda qaabka doorashadaas ay dhici doonto iyo dowladdu waxa weeye iyadu go'aanka ay ka qaadan doonto iyo rabitaanka okay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan arki doonaa waxaana jecelnahay mar walba in sida maslaxada lagu soo dhawaado ururka al-shabaab oo urur dhib badan ah aad iyo aad dadka dhibay Soomaaliya khalkhal geliyay يعني urur ilaahay uu cilmigiisa og yahay aad noo dhibay waxna ay qabtaan ku reyn lahayn alla ilaahu naga qabo midiir sawa naga qabo wala waa isku baabaayna marka ilaahay naga qabtay ururkaas oo dhib badan ba jira kuna xoogan koonfurta gaar ah ayagu inay dhib badan yihiin Soomaalistaan in dhulkooda difaacaan way soo haystaan inay wax dhibayaan way soo haystaan way isagu ugu daawanayaan oo kulli wanaagna dhaxyaala nimankan yaariga كل قول بعرين ما تورك على الشباب اللي يدي بتاع ولا يلا الشباب هو يتلاقى أنا باوي أبغى قاعد شيء أنا ده بريمك إسكو بدي أحسن إن ما الرجال كان ما تقول فرحة فرح لا عالم وحاله قلت على الله الشباب الصومالي اللي هو الدون قدام ما قلت على الله أرجع استوديو والله استوديو يقول ما كان ما كتبت استوديو أنا كعرف إيش تربو مج تربو سجى كبرية marka safaarada tag lagu yiri safaarada caasim wanaga isgaamin kartaa okay al-shabaab waxay sameeyeen magaaladii caasimadda Muqdisho oo khudaar ku nooleed khudaarta dabcan waxay uga timaada xagga beeraha afgooyiga dhulkaas ha hadiyad ana qabatay ma dhaka ku siiyeen khudaartii inuu ka joojiyay maxaa sababta tahay soo waxay dad bamba ay isweydiinayaan macnaha dawlad baad wax una qabataysa la maqli jiray waa laga awood badan yahay dawladda laakiin urur wadan gudihiisa ka dagaalamayo oo leeyahay wax una qabatay waa wax macnaha la yaab dawladda wax cashuur jirtay urur cashuuraya wali canshuurta ugu badan bay ka qaadaan Muqdisho waliba ninkii yiraahdo dabaqa cashuur kama bixinaya leeyahay waxaan la dhihi insha Allah waa dhisi doontaa 35 milyan bay doomanaya sanadka soo dhaafay ma insha Allah waa dhisi doontaa baba loo dhan qarax baa lagu xidhay dabaqa dum ma ninkaas ayaga aan hoggaansamin waa daba bas waa dooya waxooda iyo sakada laga qaad dadka sakawaadna ma waa baade ma waa sakay ana ma joogtid waa tahay waxaan fakado warbixintaas aanu guda galno al-shabaab marka waxay cuno qabateen ku soo rogeen baa leeyahay Muqdisho haye cuno qabateyntaas marka waxaa leeyahay waa qudaartu waxyaabaha asaasiga ka mid tahay oo caafimaadku fiican oo dadku isticmaalo qudaar la'aanteed waxa way xitaa cuntadii dhadhan ma lahan waxa cunto lagu kariyo qudaar la waa ma mooska adoon la bariisku mooska markuu bariisku bisaa lagu cunaayo aw horta wixii lagu kariyo bariiska marka hore la karinayo waxa uu muhiimsan oo mooska afkaadada hay baradhadii muxuu ahaayay basashi wixii oo dhan badee basbaaskii inta rag waxay soo dhan xitaa milixda soo galay wixii oo dhan markaas sababta ay u cuna qabatay maxay tahay avocado Muqdisho caasimadda Soomaaliya inta badan qudaartu waxay uga timaadaa gobolka Shabeellaha Hoose Shabeellaha Hoosena muddooyinka u dambeeyay waxa
howlgallo ka waday ururka al-shabaab marka cumar qabateyn ay muqdisho qudaartii uga jarayaan inay muqdisho tagto bay waxa way kusoo rogeen waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah wadooyinkii hore gaadiidka ilaa 5 gaari bay maaldhood hore u gubeen baa la yidhi weli haddana waxay baacsi ku hayaan baa la gaadiidka qudaarta u wada muqdisho in ay gubaan way gubaan hore gawaari dhuxul wadooy dhuxusha wax lagu karsanayay wey haye qudaartii dhuxusha hadii la ma wax la karsan ma waa nolol diid nimanku aqaan wax la cuni dooneen hay marka wadadii markii hore gawaari ay mari jireen oo gawaari far badan lagu gubay yaa hadda waxa ka daay baa la yiri roob maadaama wadadii roob ka daa on la mari karin gawaaridoodana wadooyin kale oo awal aysan mari jirin oo qardajax iyo aadeen baa la yiri kuwii ka doorteen waa ka dhabaxsanay way arkayaan kuwii bay uga daba tageen si qudaarta muqdisho looga joojiyo marka barnaamijkaasi baa muqdisho hadda ka cusub cunaqabateyntaas cusub al-shabaab ay kusoo rogeen ee dhanka qudaarta ah waxaan leenahay iyagana dadka qudaarta u fasaxa waa dad Soomaali muslimiin oo walaalihiin dalkan u dhashay xaq bay u leeyihiin noolaadaan aad iyo aad nin baa wuxuu yidhi cali dheer dhintaan lidhi moogta afayeenkii ururka al-shabaab cali dheerow haddaad dhimatayna naarta allah kugu fogeeyey haddaadan dhimanina wuu yidhi inaad waan iska ciyaariyo waxaan u boqorin nima wala ma dhacaza gabadha inaad waan iska ciyaariyo xafiskii musaawic buu haddii aad wada sheekaystaan gabadha shacal dheere ka doonan lahayd ma isaga oo maxaa ka doonan maan ama iska daayo ama la baxsado marka wada dadin loo qabto ma dhila wad ma soo doonay anu gabadha haddii ilaahay iskaana bari lahaa meeluunaba ka dhaweynaan la tago ma masaafaysan lahayd masaafa weliba fog baan geysan lahaa oo de isaga aanaan waxba soo ahayn weliba soo doonan karin iyo inaan iska badaayo waxaan rabaa daawadayaashan aan xusiyo daawadayaal halka aad barnaamijkan xiisaha badan ee kormeerka wararka iyo kaftan kala socotaan waa channelada kale ah Kismaayo Cable iyo Qari Juqood qodobada aan barnaamijkeena ku soo qaadanayna waxa ay kala ahaayeen 35 qof oo cumreysanaya oo dalka Sacuudiga ku dhintay inta u dhaxaysa magaalooyinka barakaysan ee Madiina al-Munawwara iyo Makka al-Mukarrama afar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii bas ay saarnaayeen u gaari kara ku dhacay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya oo dalab cusub oo dhanka doorashooyinka u gudbiyay dawladda Soomaaliya xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xalay xilli habeenimo ah ka baxay ama ka dhoofay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho tarasna ku sii ahaa Addis Ababa una sii jeeday dalka Mareykanka halkaas uga qayb galayo shirka sanadlaha ee bankiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF iyo al-shabaab oo cunaqabateyn dhanka qudaarta ku soo rogay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya barnaamijka waxa idin falanqeynayay aniga oo Barreelka Casaya saaxiibkii Cabdiraxmaan Afakaad intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmi doona haddii ay baha waddo ogolaado waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo